India iyo Pakistan waa laba dal oo dhaca koonfurta Aasiya, lehna xuduud. Maalmihii u dambeeyay waxaa soo dhex galay khilaaf fadhiistay markii 40 askari oo ka tirsan ciidamada Hindiya lagu dilay xuduudda koonfurta Kashmir, oo ah gobol ay ku muransan yihiin labada dal lahaanshaheeda. Markaan ka bilowno badka dhulka ay leeyihiin labada dal, India badkeeda waxaa lagu qiyaasay 3.29 milyan oo kiiloomitir, halka Pakistan lagu qiyaasay 796,990 kiiloomitir oo isku. Marka u imaano dhanka dadka, India dadkeeda waxaa lagu qiyaasay 1.31 bilyan oo qof, waana dalka labaad ee ugu dadka badan, halka Pakistan ay tahay 197 milyan oo qof. Marka u imaano dhanka ciidamada howlgala ee Pakistan, waa 643,800 kuwa diyaarka ama kaydka ahna waa 513,000 oo ciidan. Dhanka India marka u imaano, ciidamada u howlgalay Hindiya waxaa lagu qiyaasay 1.4 milyan oo ciidan, halka kuwa active-ka ahna lagu qiyaasay 1,155,000 oo ciidan. Marka u imaano ciidamada militariga ee u qaabilsan inay amniga iyo xuduudaha dalka ilaaliya ee India, waxaa lagu qiyaasay 2 milyan oo ciidan, halka dhanka Pakistanna lagu qiyaasay 400,000 oo ciidan. Markaan u imaano wax soo saarka gudaha ee dal walba ama loo yaqaan GDP-ga, Hindiya wax soo saarkeeda gudaha waxaa lagu qiyaasay 9.489 trilyan oo dollar, halka lacagta ay u qoondeyso ciidamadeeda lagu qiyaasay 55.9 bilyan dollar. Marka u imaano dhanka Pakistan, lacagteeda GDP-ga ama wax soo saarkeeda gudaha waxaa lagu qiyaasay 1.011 trilyan, halka lacagta ay u qoondeyso militarigeeda lagu qiyaasay 7.6 bilyan. Hindiya waxay ka mid tahay dalalka sanad walba soo iibsada qalabka militari, waxaana sanadkii tagay 2018 soo iibsatay qalab lagu qiyaasay 3 bilyan oo dollar. Marka u imaano dhanka qalabka ay ciidamada ku qalabeysan yihiin, Hindiya waxay leedahay 4,426 taangi, waana mid ka mid ah dalalka leh taangiyada ugu badan. Sidoo kale Hindiya waxay leedahay 6,704 gawaarida gaashaamana. Sidoo kale Hindiya waxay leedahay 290 gawaarida casriga ee dedan ama loo yaqaan beebiyaasha ee qoryaha ku rakibay. Sidoo kale Hindiya waxay leedahay 2,414 gawaarida gaariyaasha qaada sida beebiyaasha ama taangiyaasha iyo qalabka militariga. Sidoo kale Hindiya waxay leedahay 292 gantaalada ridada dheer. Markaan u imaano dhanka Pakistan waxay leedahay 2,924 taangi, 2,828 gawaarida gaashaamana, iyo sidoo kale 465 gawaarida beebiyaasha casriga, iyo sidoo kale 3,228 gawaarida xamuulka qaada ama gaariyaasha qaada, iyo sidoo kale 174 gantaalada ridada dheer. Sidoo kale Pakistan waxay leedahay gantaalkooda casriga ee waadhooda ikhtiraaceen ee loo yaqaan Al-Khalid, oo ah gantaalada ugu casrisan ee adduunka waqtigan la isticmaalo. Sidoo kale Hindiya waxay leedahay gantaalkooda casriga ee ciidamadooda ku tirsan ee lafdhabarka ah ee loo yaqaan Arjun MK-12. dhanka cirka, Hindiya waa dalka afraad ee leh diyaaradaha dagaalka ugu badan adduunka, waxayna leedahay 1720 diyaaradood, halka Pakistan ay leedahay 961 diyaaradood. Hindiya diyaaradaheeda waxaa ugu caansan Sukhoi Su-30 MK-1 ay sameeyaan Ruushka, sidoo kale Mikono MiG-29 Dassault Mirage 2000. Pakistan diyaaradaheeda waxaa ugu caansan 76 diyaaradood oo F-16 Fighting Falcon, iyo sidoo kale 88 diyaaradood Apache F-17 Thunder, iyo sidoo kale French Dassault Mirage. dhanka diyaaradaha qumaati u kacay ee loo yaqaan helikobtarada, Pakistan waxaa ugu gacan sareysa iyadoo lahayd labada nooc ee ugu casrisan ee loo yaqaan AH-1S Cobra iyo sidoo kale AH-1Z Fibers.
dhanka badda. Ciidamada Hindiya waxaa loo tixgeliyay inay ka mid yihiin kuwa ugu awoodda badan dhanka badda marka laga hadlayo, ayagoo ka kooban 16,109 askari oo ku qalabeysan maraakiibta diyaaradaha xambaara oo hal ah, 12 maraakiibta wax burburiya ah, 14 maraakiibta dagaalka ah, 15 gujis ah, 23 corvettes ah, iyo 7 main warfare ah, iyo 72 maraakiibta ilaalada ah. Dhanka Bakistan, ciidamada Bakistan waxay kor u dhaafeen 30,000 oo ku qalabeysan hal maraakiibta gantaalada xambaarsan, 7 maraakiibta dagaalka ah, 8 gujis ah, iyo 3 main warfare ah, iyo sidoo kale 17 maraakiibta ilaalada ah. dhanka nukliyeerka, Bakistan iyo Hindiya waxay ka mid yihiin 9 dal ee leh nukliyeerka ama loo ogol yahay. Nukliyeerku wuxuu ka mid yahay hubka ugu casrisan ee aadanuhu sameeyey, waana hub si xun wax u gumaada una burburiya. Dhanka nukliyeerka, Hindiya waa looga gacan sareeyaa, Bakistan ayaana leh gantaalada ugu badan ee nukliyeerka xambaara, waana sababta khilaafka soo dhex galay haddeertaan labada dal ee adduunka isha ugu hayaan. Iyadoo gantaalada balaastigada ee Bakistan lagu qiyaasay inay u dhexeeyaan 110 ilaa 130, halka Hindiya lagu qiyaasay 110 ilaa 120. 10 sano u dambeeyay, Bakistan waxay sii casriyeysay ama sii laba jibaartay casriyeynta hubka nukliyeerka ah, waxaana labada dal u dambeeyay inay tijaabiyaan gantaal 1998 oo ay hal mar wada tijaabiyeen. gantaalka nukliyeerka xambaara kooda ugu casrisan ee labada dal haystaan waxaa la dhahaa Hatch-9, waxaana iskale Bakistan, waxayna casriyeyn ku waday sanadihii u dambeeyay. dalalka ay caawimaadda militari ka helaan, Bakistan waxay caawimaad militari ka heshaa Mareykanka iyo China, halka Hindiya ay caawimaad militari ka hesho Mareykanka iyo Ruushka. Daawadayaal, waxaa intaan ugu eeg maqaalkan ka diyaarinay isbarbardhiggan ku sameynay awoodda militari ee Bakistan iyo Hindiya. Waa ku mahadsantihiin daawashadeena. Mar labaad waxayna ka codsanaynaa inaad subscribe noo saartaan, kabacdina gabgaleelka daawataan si inay soo gaaraan maqaaladeena cusub. Waa isku mahadsantihiin daawashadiina. Haddii aad ka hesheen videogan, like, subscribe, share. mahadsanidin.